بسم الله الرحمن الرحيم فيديو waxaan doonayaa inaan ku sharaxo qaybta expenses-ka ama qaybta kharashaadka qaabka loo soo geliyo iyo qaabka loo fiiriyo kharashaadka kugu jira meesha. Waxaan tagayaa meeshaan ay ku qoran tahay expenses saddex qaanadood baa igu jira. qaanada hoose waa category-ga kharashaadka, tusaale ahaan madaxya u sameynaysa kharashka, tusaale ahaan kirada biyaha, korontada iyo wixii la mid ah. qarashka marka soo gelinaysa halkan ka soo gelinaysaa kharashaadkii aad maaragtay soo geliseen halkan ayaad ka fiirinaysaa ay ku qoran tahay list expense. Marka waxaan ku hormarinaynaa expense category aan ku dhufano kharashaadka hore inoogu jiray halkan uu inoogu soo taxayaa. marka mid cusub haddaan rabo inaan kusoo daro halkan ayaan ka soo gelinayaa. waxaan dhahayaa add oo kale, waxaan leeyahay kharashkan waxaa la yidhaahdaa tusaale ahaan waxaa la dhahaa nadaafadda oo kale. qarashkan waxaa la dhahaa nadaafadda, kadib save baan dhahayaa. listigii buu igu soo biiriyaa nadaafadda saa ujeedin. markaan soo samaysto listkayga oo dhan category-yada waxaan dhahayaa add expense. markaan kusoo daray kharashka simple waxaan halkan ka dooranayaa haddii laba location isticmaalo, tusaale farmashi 1 iyo farmashi 2 halkan ayaan ka dooranayaa midkaan kharash ka saaray. haddii laakiin hal farmashi aan isticmaalo oo kale automatic isaga igu dooraya. marka waxaan leeyahay farmashiga ii soo door. halkan waxaa ku xigta expense category, waa category-yada aan sameysanaynay lacagta category-yada. waxaan tusaale dhahayaa nadaafadda oo kale. nadaafadda haddaan dhaho boonaha haddaan isticmaalay number waan gelinayaa, haddii kale sidaan u deynayaa. taariikhda maaragtay lacagtani ay ahayd baan dooranayaa, tusaale ahaan waa 1 bisha 9aad. waxaan dooranayaa qofka bixiyey oo kale, tusaale ahaan Cumar baa bixiyey lacagtan. haddii qof customer-ka ka mid ah ama supplier-ka ka mid ah aad lacagta siinaysidna halkan un baad ku dhufanaysaa, haddii kalena waxa way sidaa u deynaysaa. marka waxaan leeyahay totalka lacagta waxay ahayd 700 oo kale. amount-igi baan gelinayaa lacagta laga rabay. markaan geliyo note haddaan ku daray halkan ka soo gelinayaa. qaybtan dhexe marka waxay ka anfacaysaa haddii kharashkaani uu yahay mid soo noqonaya, tusaale ahaan kharash bil ah bil walba soo noqonaya, halkan ayaad ka dooranaysaa. tusaale ahaan waxaa leedahay bil kasta waa inuu soo noqdaa, waxaa leedahay 1 month kasta waa inuu soo noqdaa, hal mar oo ka mida bishaas waa inuu la arkaa oo repeat soo dhahaa. marka bishu markay dhamaato isaga automatic ugu soo tuuray wuxuu leeyahay kharashkan inaad bixisaa la rabaa, kadib waxa weeye waa bixinaysaa. marka nadaafadda bil walba inoo soo noqotaa inoo door. totalkii nadaafadda lacagta ku bixisay waxay 700. waa haddaa lacagtii bixisay kharashka. haddii aadan bixin sideeda u deynaysaa 0 bay ku ahaanaysaa. halkan taariikhda bixisa dooranaysaa 22 maanta ah iyo akoonkaad lacagta ka saartay. tusaale ahaan waxaan ka saaray akoonka Golistan ka saaray lacagta uga diray, kadib waxaan dhahayaa save. sidaas ayuu kharashkaasi inoogu soo gelayaa. markuu kharashku inoo soo galo waxa weeye wuxuu kusoo biirayaa listkii kharashaadkii hore. saa ujeedid waa kan kharashkeeni 700 buu ahaa, 700 baa waa kan. Cumar cilmi baa bixiyey lacagta. saa ujeedid information-kiisa dhammaystiran. marka simple haddii aad u baahan tahay kharashkan waxa weeye inaad maaragtay waxa weeye edit garaysid, action baa ku dhufanaysaa ama delete dhahdid iyo wixii la mid ah. aad bay u fududahay. haddii aad fiirinaysa kharashaadkii maanta kaa baxay oo kale taariikh halkan aad uga fiirin kartaa iyo wixii la mid ah. sidoo kale kharashaadka aad bixisay iyo kuwa lagu leeyahay halkan aad ka kala fiirin kartaa. iyo maaragtay dadka kharashaadka lacagaha bixiyey oo kale, tusaale ahaan 2 cashier baa jira, mid walba kharashaad buu bixiyey. mid walba haddaa gooni u rabtid inaad u fiirisid lacagii uu bixiyey halkan ayaad ka fiirinaysaa. sidoo kale labada farmashi waad kala saari kartaa, farmashi 1 iyo farmashi 2. waxaa dhihi kartaa farmashi koowaad intaas kharash ma garanaysaa uu bixiyey, farmashi 2 intaasoo kharash u isticmaalay, gooni waa u kala saari kartaa iyo wixii la mid ah. halkan saa ujeedid waa kharashka category-yadii uu lahaa. marka mid walba category-giisa gooni waad u fiirin kartaa iyo wixii la mid ah. marka guud ahaan waxa weeye intaas ayuu inoo noqonayaa qaybta kharashaadka. waxaan rajeynayaa inaad faham guud ka qaadateen. haddii ay jiraan waxyaabo aad fahmi weydaan insha Allah waa soo weydiin doontaan. waa mahadsantiin.